Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waana wadaawada kusoo dhawaada channelka Socdaal Media Network. Waxay la socodsiin doonaa mowduuceena maanta anigoo ah saaxiibkiin Cabdalle. Sidaan horey ka ballan qaaday, waxaanu bilaabi doonaa haddii la idmo barnaamij ku saabsan immigrationka caalamka, wadamada qaata qaxoontiga, shaqaalaha, fursadaha kale ee iyaguna bannaan. Waxaanu dul istaagi doonaa insha Allah waddan baynu eegi doonaa barnaamijyada ka jira iyo siyaabaha loo tago. Insha Allah waxaan soo gudbin doonaa si xalqad ah. Maanta waxaan ka horeyn doonaa waddanka Canada oo sida wada ogtihiin waddanka ugu ballaaran ee la aado. Waddanka Canada waxaa ka jira barnaamijyo aad u fara badan oo barnaamijyo aad u fara badan oo lagu yimaado ama lagu tago. Shanta ama afarta ugu caansan ee ugu muhiimsan insha Allah maanta dul istaagi doonaa aynu soo qaadan doonaa. Waxaan ku xigsiin doonaa waddanka Australia iyo wadamada Yurub iyo Turkiga iyo Carabta iyo gebi ahaanba caalamka. Haddaba haddii aynu ku bilowno waddanka Canada. Waddanka Canada waa waddanka ugu ballaaran ee loo haajiro ama isagoo keensada qaxoonti aad u fara badan sanad kasta 1 milyan lagu qiyaasay. Haddaba waxaa ka jira barnaamijyo iyo barnaamijyo aad u tiro badan oo lagu tago oo gaaraya 10 program gaaraya ayaa lagu tagaa. Qof walba kii isagu uu sahlan buu garanaysaa ku tagaa. Waxaanu eegi doonaa maanta waxaanu soo bandhigi doonaa haddii la idmo 5 barnaamij ama program ee ugu fudud ama ugu caansan ama ugu sahlan ee lagu tago ayaan dul istaagi doonaa. Kulli xalqadan waa iska hordhac ama waa si guud baynu iftiiminayna, laakiin mowduucyada soo socda la idmo xarajeynaa inaan mid u dul istaagno aynu barnaamij kasta ama program kasta eegno shuruudihiisa, waxyaabaha la iska rabo iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay hadaad codsanaysid meeshaad kala xiriiraysid cidda kaa caawinaysa. Waxyaabahaas oo dhan si gaar ah insha Allah uga diyaarin doonaa mowduuc gaar ah ama xalqado gaar ah, laakiin maanta si guud baynu insha Allah dul istaagi doonaa. Programka ugu horeeya aan soo qaadanay waxaa ka mid ah program la yiraahdo Skilled Worker Program. Programkan waxa uu ku saabsan yahay ama waxa uu gaar yahay shaqaalaha xirfadlayaasha ah. Dadka ugu badan ee Canada aada ama ay soo dhoosato ama ay keensato waddankeeda waxaa ka mid ah waxa ugu badan dadka shaqaalaha ah ee waliba kuwa xirfadda leh ayaa ugu badan. Programkan waxaa ku guuleysan kara ama codsan kara xirfadlayaasha caafimaadka, dadka xirfadooda dhanka caafimaadka tahay ama dhakhaatiirta, xirfadlayaasha dhanka beeraha ama agriculture-ka, dadka IT-ga ku fiican sida programming iyo software engineering iyo data analysis waxyaabaha IT-ga oo dhan. Sidoo kale dadka accountants-ka ama dadka xisaabaadka financial analysts-ka ama dadka xisaabaadka la xiriira, dadka driverada ama darawalada, dadka darawalnimada ay tahay xirfadoodu iyo gaadiidka kala duwan sida taraagyada, cagafyada iyo waxyaabaha la midka ah, dadka ka shaqeynaya meelaha farmiska ee xoolaha lagu dhaqo ama digaagaba ama lo'da iyadoo dhammaan xoolaha lagu dhaqo lagu xanaaneeyo iyo dhammaan xirfadaha kala duwan ee caalamka ka jira. Dhammaantoodba waa la qaataa. Kolley barnaamij gaar ah ka diyaarin doonaa inuu aad u sii dul istaagi doonaa oo wixii shuruud iskaga baahan yahay meelaha laga heli karo iyo processka iyo cidda kala xiriiraysid adigu barnaamij gaar ah ka diyaarin doonaa. Laakiin maanta waxaanu dul istaagi doonaa si guud. Programka labaad ama mowduuca xiga ee ay Canada ku keensato ama lagu tago waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa Provincial Nominee Program. Programka labaadna waxa weeye Provincial Nominee Program. Programkan waa adigu kolley ma sii muhiimsana, laakiin waa mid gobolada u gaar ah. Waxaa jira gobolada qaar oo ay ka jirto population ku yar yahay ama bulshadu ku yar tahay oo dadka lagu deegaamiyo. Markaa kan wuxuu gaar u yahay gobolada qaarkood oo iyaga barnaamijka lagu aado ama programka lagu aado. Programka saddexaad waxaa isagana lagu magacaabaa Group 5 Group 5. Programkan isagu waxa uu u gaar yahay dadka qaxoontiga ama haysta kaarka qaxoontiga qaramada midoobay ka haysta ee qaxoontinimo loo aqoonsan yahay. Group 5 sida magaciisa ka muuqata
waxa uu ku kooban yahay 5 qof. Haddii aad tahay qof qaxoontiga ka diiwaan gashan, waxaad raadsan kartaa 5 qof oo Canada jooga. Asxaabtaada ama ehelkaaga midkay doonaan ha ahaadaan ama dadka kale caadigaaba, waxaad raadsanaysaa 5 qof oo Canada jooga dhammaantoodba. 5taa qof ciday doonaan ha ahaadaan ama familkaaga ha ahaadaan ama asxaabtaada ha ahaadaan, waxay kuu sameynayaan sponsorship ay kuu sameynayaan. Marka programkaas waxa uu ka kooban yahay 5taa qof ee kuu jooga. Haddii aad heli karaysid Canada kuu jooga ee kuu dhameynaya iyagu. Marka insha Allah si buuxda ayaan insha Allah uga hadli doonaa oo faahfaahsan. Laakiin maanta intaas ayaan kaga gudbaynaa. Barnaamijka ama programka afraad waxaa la yiraahdaa Family Sponsorship. Programkani sida ka muuqata magaciisa isagana waxa weeye mid la xiriira familiyada kala maqan. Haddii uu qof familygaaga ka joogo Canada uu ku daawoon karaa ama sponsorship uu ku sameyn karaa. Tusaale ahaan oo kale qofka ay labadiisa waalid mid ka mid ah joogaan Canada ama walaaladii mid ka mid ah joogo ama qof familyiga ka mid ah ayaa kana ku soo dhameyn karaa isaga laftiisa. Isagana insha Allah barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa shuruudihiisa iyo processkiisa aynu kaga warrano. Barnaamijka ugu dambeeya ee 5aad waxa lagu magacaabay isagana Study Permit. Barnaamijkan Study Permit waxa uu isaguna u gaar yahay ardayda ama dadka waxbarashada u aadaya. Waxa uu khaas u yahay ama u gaar yahay dadka waxbarasho ahaan u aadaya Canada. Dhammaan programyada insha Allah mid baan u dul istaagi doonaa, mid baan soo gudbin doonaa. Waxaan ka sameyn doonaa mid kasta xalqad gooniya oo aan ku faahfaahinayno mid kastaba waxa uu yahay, sida loo codsan karayo, halka laga codsanayo, shuruudihiisa laga baahan yahay iyo dhammaanba wixii macluumaad uga baahan tihiin. Idinku soo weydiiya wixii su'aalaad qabtaan soo weydiiya. Xalqada xigta waxaan ku horeyn doonaa ama ku soo gudbin doonaa programka ugu horeeya ee ahaa Skilled Worker Program. Aynu insha Allah ku soo gudbin doonaa wixii talo iyo tusaalaad haysan ama su'aal qabtaan commentiga noogu reeb haddii la idmo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaa mawduuceena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.